duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta soo kormeeray hawaanka lagu qalo xoolaha magaalada Boorama. Kormeerkan ay golaha deegaanka degmada Boorama ugu kuurgalayeen xaaladda nadaafadeed uu ku sugan yahay hawaankaasi maadaama la galay waqti roobaadkii ayaa sidoo kale waxa uu daarnaa mid lagu indheyndeynayay dhismaha xayndaab lagu wareejiyay hawaankaasi. waxaana ugu horreyn halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama iyo sidoo kale duqa degmada Saleebaan Xasan Xaddi waxayna tilmaameen waqti maanta kawaankii magaalada Boorama oo runtii muhiimadiisa ay tahay inaan soo eegno hawl maalmeedkii shaqadii maxaan ku dhahay hawl maalmeedkii marka kawaankii oo dib loo casriyeeyay oo deyr fiican loo sameeyay oo dhibaatadii ugu dareed ay ahayd waa meel maxaan ku dhahay caafimaadka magaalada aad muhiim ugu ah in la ilaaliyo feedhowrkeeda oo meel nadiif ah oo ka soo baxay hilibka magaaladu wana waajib saaran waana wixii loo doortay bay tan ka mid tahay waxa weeyaan ugu baaqaynaa bal in la ilaaliyo hiliblayga lafteeda oo dadka xoolaha qale kawaanka xoolaha ku qalay iyaga laftoodu qayb ugu muhiimsan ilaalinta kawaanka iyaga leh waanta waxna keena kawaanka waxna baahiyaadkiisa waa ku fargaraynay maxaa ka dhimo roobkii baa imanaya dirinishkii iyo dhulkii bulaacadu ka baxayeen inaan banayno qalabka wixii ka wasakhoobay iyo wixii bedelaad u baahan inaan qoliyaha hiliblaha noo sheegno niraano hal bedelo waxaas waa laga baxay waxa annaga waajibkaygu yahay inaanu qabano ku kormeerno hygiene kale waxa weeyaan waajib naga saaran qorada hygiene waaxdaasaan doonanay marka inay si xoogan u activate garayso aanu activate garano geesta kale golaha deegaanka degmada Boorama oo horkacaya duqa degmadu Saleebaan Xasan Xaddi ayaa kormeer ku soo sameeyay halka uu marayo dhismaha bridge-ka dixda qoorgaabeed ee bariga magaalada Boorama oo isku xidhi doona jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama kaas oo hore u ballan qaaday dhismihiisa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaana ugu horreyn halkaasi ugu xog waramay halka uu marayo dhismaha bridge-kani injineerka gacanta ku haya waa bridge-ka ee Soomaaliland ay gacanteeda ku dhistay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu mahadnaqaynaa yani waxtarka weyn ee gobolka awdal maanta u tirsan waayo waxa weeyaan waa mashruuci ugu weynaa weey waxaan waa dooxii kala jaray magaalada. inta kadib waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha jaamacadda Camuud iyo sidoo kale duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi waxayna tilmaameen madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka runtii waa guul weyn oo noo soo kordhay. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dambeeyana wixii mashaariicin ku talabsan karna sida wada jira ay noogu qabsoomaan. waan aad iyo aad meeyarka iyo xildhibaanada u mahadsan yihiin inay kormeer noogu timaadaan. jaamacadda iyo guud ahaanba degmada iyo gobolkaba waa halbowle iyo guud ahaan Soomaaliland wax badan oo madaxweynayaashii hore ku dhiiran waayeen haddii ku dhiiraday ilaahay xasaanadka kuugu daro waana arrin loo baahnaa annaguna wixii waajib naga saaran yahay inaan fushano baa muhiimadu ay tahay. waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.